Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Kusoo dhawaada Nuurshe Academy. Casharkan waa cashar wada sheekaysi ah. Wada sheekaysigan wuxuu u dhexeeyaa teacher and student, macallin iyo arday. Student ayaa bilaabay, ardaygii wuxuu yiri may I come in, ma soo gali karaa? May I come in, ma soo gali karaa? Teacher wuxuu ku jawaabay yes, ha, stand here. Halkan istaag. Stand here halkan. Why sababteeba do you always come late? Had iyo jeer aad u soo dahdaa. Ereyga always waa had iyo jeer, come waa imaansho, late-na waa daahitaan. Student wuxuu yiri okay, aan ku soo celiyo teacher. Yes, ha, stand here halkan istaag. Why sababteeba do you always come late? Had iyo jeer aad u soo dahdaa. Student wuxuu yiri it is the bus which makes me late. Baska ayaa isoo daahiyey. It is the bus waa baska which midka makes me late isoo daahiyey. Okay, bus waa iska baska caadiga ah. Marka wuxuu yiri baska ayaa isoo daahiyey. Macalinka wuxuu yiri marka teacher, what time waqtigee do you leave aad ka tagtaa the home guriga? What time waqtigee do you leave the home aad guriga ka tagtaa? Student ardayga wuxuu yiri I always leave, had iyo jeer waxaan tagaa. I always leave the home, guriga waxaan ka tagaa. Ereyga leave waa tegitaan. Okay, I always leave the home, had iyo jeer waxaan guriga ka tagaa at 10 to 8, 8:10 dhiman. Okay, 10 to 8 waxaa la 8:10 dhiman, micnaha 7:50 daqiiqo. Sida saacadda loo sheego, cashir dhan oo dhammaystiran ayaan ka diyaariyey. Wuxuu ku jiraa janaalkeena Nuurshe Academy. haddaa u baahan tahay halkaas ka soo daawo insha Allah. Wuxuu yiri I always leave the home, had iyo jeer waxaan guriga ka tagaa at 10 to 8, 8:10 dhiman. Teacher hadlay, macalinka wuxuu yiri how far is your home from here? Fogaan intee la-eg ayuu gurigaagu halkan ka fog yahay? Student wuxuu yiri it is about 3 kilometers from here. Qiyaastii 3 kilometer ayuu gurigaygu halkan ka fog yahay. Teacher hadlay, macalinka wuxuu yiri you leave your home, waxaad guriga ka soo tagtaa at late time, goor dambe. Okay, that's why, taasina waa sababta you get late, aad u soo daahdo. You leave your home, waxaad gurigaaga ka soo tagtaa at late time, goor dambe. That is why, taasina waa sababta you get late, aad u soo daahdo. Student wuxuu yiri I take my breakfast, waxaan quraacdaa. I take my breakfast, waxaan quraacdaa at 20 to 8. 20 to 8 waa 8:20 dhiman. 8:20 dhiman ayaan quraacdaa. I take waxaan qaataa ayuu yiri my breakfast, quraacdeeda at 20 to 8, 8:20 dhiman. 8:20 dhiman ayaan quraacdaa. Teacher, macalinka wuxuu yiri don't you pray, miyaadan tukanin? wala yaabin ninkan, miyaadan tukanin? yacni waa maxay daahitaankan faraha badan? ilaan qofka hadduu salaada subax tukado uusan ku noqsanin hurdadii, waqti badan uu heli karaa soo maaha. marka macalinka wuxuu yiri don't you pray, miyaadan tukanin? Student wuxuu ku jawaabay not regularly, joogto ma ahan. oo marna waa tukada, marna ma tukado ka wadaa. marka kuwii salaada dhowr Allah naga dhigo. qof ilaalin waayey 5 salaadood ee Ilaahay uu ku waajib yeelay, miyaa ilaalinayo balan uu ibnu aadan la galay? jawaabtu waa maya. Okay, marka salaadaha aan ku dadaalo insha Allah, aan ilaalino. wuxuu yiri not regularly, joogto ma ahan. Okay, teacher, macalinka wuxuu yiri marka my dear student, ardaygayga qaaliga ahaayow. My dear student, ardaygayga qaaliga ahaayow. ereyga dear waa qaali, dear. My dear student, ardaygayga qaaliga ahaayow. It is a bad habit, waa caado xun. ereyga habit waa caado, badna waa wax xun weeye. It is a bad habit, waa caado xun ayuu yiri. Change, bedel your routine,
routiinkaaga bedel. Routine waxaa la lahaa waxyaabaha soo noqnoqdo ee maalin walba aad samayso. Subaxii markaa soo kacdo waa cadaysataa, waa quraactaa, shaqada ama waxbarashada aadaa, yacni duhurkii waa seexata, wax noocaas waxyaabaha aa mar walba qabto oo kugu soo noqnoqdo haddana maalinta ku xigta saas oo kale isla wixii aa samaysaa. Marka routine waxaa la lahaa waxyaabahaas soo noqnoqdo oo qofka yacni waxyaabaha uu qabtaa la lahaa oo mar walba uu sameeyo. Okay, marka wuxuu yidhi change bedel iyo routiinkaaga bedel. Always had iyo jeer get up kac early goor hore in the morning subaxi xilli hore kac toos. Okay, always get up had iyo jeer toos early goor hore in the morning aroorta. Okay, over your prayers salaadahaaga tuko and go and add for a morning walk. Morning walk waa socodka aroorti ama subaxi soo soco. Okay, take breakfast quraaco at right time xilliga saxda ah quraaco. Okay, xilli sax ah quraaco, xilli dambe waxaan aa cunaysid iska daayo oo xilliga iskuulka u soo dhow yahay aa wax cunaysid iska daaye. Wuxuu yidhi take breakfast quraaco at right time xilliga saxda ah and then kadibna leave for school iskuulka usoo tag, iskuulka soo aad. Student wuxuu ku jawaabay okay teacher. Okay teacher, haye macalin, from tomorrow laga bilaabo berito I will never be late ma noqon doono mid soo daaho. Okay, tomorrow waa beri. Okay teacher, haye macalin, from tomorrow laga bilaabo berito I will never be late ma noqon doono mid soo daaho. Okay, sii socotay teacher hadlay marka macalinka wuxuu yidhi you are good waad wanaagsan tahay. One thing more hal shay oo dheeri ah keep in mind maskaxda ku hay. One thing more hal shay oo dheeraad ah keep in mind maskaxda ku hay. Okay, marka hadal muhiim ah ayuu u sheegi rabaa ardayga. Regularity and punctuality conquer the mountains. Okay, wuxuu yidhi regularity joogtaynta in wax la joogteeyo oo mar walba la sameeyo, and iyo punctuality waqti dhowris waaye iyo in waqtiga la dhooro. Conquer waxay qabsadaan ama ay fuulaan the mountains buuraha, yacni wax weyn ayay samayn karaan waaye. xikmad fiican ayuu u sheegay macalinka, oraah aad wanaagsan ayuu la wadaagay ardayga. wuxuu yidhi regularity joogtaynta and iyo punctuality waqti dhowrista conquer waxay qabsadaan the mountains buuraha. Okay, ama buuraha ayay fuulaan. ereyga conquer qabsasho ama fuulis intaba waa u isticmaali kartaa. Student wuxuu ku jawaabay thank you very much aad ayaad u mahadsan tahay oo waad ku mahadsan tahay for your good advice waanadaada wanaagsan. ereyga advice waa waano. wuxuu yidhi marka may I sit ma fariisan karaa now hadda. macalinka wuxuu yidhi marka teacher wuxuu yidhi oh yes of course dabcan. Okay, marka cashirkeena intaasuu noogu egyahay. thank you aadaa u mahadsantihiin. kusoo dhawaada mar kale Nuurshe Academy. guulaan idin rajeynaa dhammaantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.